السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان dadka ku xiran kanaalka dhalinyarta rag iyo dumarba meel ka soo joogtaan waxaan igu salaamayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu haddii kanaalka aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar asxaabtaadana la wadaag maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta ka taagan youtube-ka dhexdiisa taasoo dhibaato lagu geysanayo samafale xasan toob oo ah nin samafale ah oo dadka u gargaara dadka masaakiimiinta caawiya dadka aan hadli karin u hadla dadka aan eheladooda kala maqan yihiin isku raadiya ayaa dhibaato weyn loo geystay taasoo ah in koontadii uu shaqaynayay bulshada Soomaaliyeed codka u ahayd dadka tabartaagta daran ee aanan isha hadli karin u hadli jirtay dhibaato u geystay in la baabi'iyay gebi ahaanteedba waan ka xumahay aad iyo aad ayaan uga xumahay in samafale sabab dhibaato caynkaasa lagula kaco dadku way isdagaalaan wada shaqeynna way dhex bari kartaa haddana waa la kala tegi karaa muxuma in qof aad soo wada shaqayseen oo asxaab aad tihiin oo aad meel ka soo wada jeedeen waad kala tegi kartaan wajiiri waa lagu kala tago laakiin maahan in wax bulshada Soomaalida oo dhan ka wada dhexeeya loogu adeegayo loogu caawinayo in gebi ahaanba aad cagta marisaan haddii uu qalad galay ama wax aad ka tabanaysaan waxay ahayd inaad dariiqa saxda u martaan xastoob waa shakhsi kii dad u baahantiin asiga aad qabsataan bay ahayd laakiin ma ahan meel dhan bulshada loogu shaqeynayo dad badan ay ku xiran yihiin baahiyo fara badan lagu xaliyo in aad haanta ku ridaan wax qaldan way absolutely waa qalad wax rag isku dilo teeda kale marka la dhahayo lacag buu lunsaday intaas oo kun oo qaatay 100 kun oo qaatay marka uu qaadanayay waa la joogteen sax waana ogeedeen markaas maxaa gacanta u qabu weysay markaas oo sharci u horgeey weysay oo cadeemo aad u keeni weysay tani waxay cadeynaysaa markaa in xasan toob uu saxan yahay uu wada saxan ku taagan yahay oo samafalaha saxda uu yahay hadiiba hantidiisii bulshadu ka dhaxaysay ee loogu shaqeynay kambanigiisii la qaatay waxay cadeynaysaa qof xanaaqsan oo ka maseersan oo diidan horumarka uu sameynayo kambanigaas in dhibaatadan ku kacay bulshada ayaa iskale dadka codka aan karin ayaa iskale dadka masaakiimiinta iskale dadka farxadda entertainment ayuu u ahaa u sheekeynayo waa qalad meeshaad wax ku cuntay oo aad gacanta soo geshatay oo aad maad saxankii badan aad ku xareysaan oo aad laadaysaan sax qofku waa la shaqey kartaa waa isfahmi weysaa waa kala tagaysaa meel kala furo kartaa it's easy maahan wax adag wax ceeb maahan horumar waa sameyn kartaa aad iyo aad waa sameyn kartaa horumar laguma diidana laakiin horumar waxaad ku sameynaysaa markaa shakhsiyadaada u istaagtid inaad qof kale aad ka farqa haysatid oo aad ku dhegnaatid oo aad maantana aad ka laalaadid wax macnaha ay kuu sameynaysa ma lahan dad badan uu soo saaray dad badan uu soo gacan qabtay asxaab fara badan sidan la shaqeynaysay haddana way caasi garoobay caasiyaal waay way caasi bay noqdeen caasi iyo hoome iyo taxi ay noqdeen taxi waa sax taxi ay noqdeen taxi ay noqdeen weliba hoome caasi ay noqdeen waa wax xun waaye waa wax aad iyo aad loogu xumaaday in
bulshada iska leh, bulshada u adeegaa. It's not easy marka in maxaa ii sheeg aad cagta marisaan. waa wax ragga isku dilo waay, wax ragga isku dilo waay. haddaad adiga company kala samaysato oo koonto kala samaysatay, koontada kacso shaqeyso laguma diidana, laakiin ummadda kale ha ku mashquulin. maxaa sidii naag camal la furay maxay tahay? naag markii la furo waxaa lagu yaqaanaa in sheeg maxaa sheeg guriga ee malqacadihii iyo suxuuntii iyo digsiyadii iyo yaa surfaantii iyo maxaa sheeg jooradii iyo barkintii iyo xafaayadii wixii dhan hore u qaadanaysaa. saasoo kale maa noqonaysi marka yaa naag la furaa kale ha noqonina. dadka waa lis ogyahay, waa lis yaqaanaa. hala kala qaraabtinimayo, hala kala tago. qofka dhibkaas geystay waxaan leenahay waa wax qaldan waaye, dembi weyn waaye, hanti aa dhacday, wax badan baa xakisay. It's not easy marka in wax dad lagu soo dadaalo inaad one day aad offline kaga dhigto. It's a big problem, it's a major problem, waa wax aad weyn waay. haddii ka anaga ahaan waan ka dhidhinaynaa, waa ka soo horjeednaa in maxaa la sheeg burcadnimadaas lagu dhaqaaqo. waa fal burcadnimo wey, waa fal burcadnimo wey, waa weye burcadnimo wey in waxaasoo kale lagu dhaqaaqo. in qof shaksi wax uu leeyahay hal mar gebi ahaanba la qabto. It's very difficult waa cadowtinimo noocay u dambeyso waay. waxaan ku huwa aniga hal saac gudaha stop haddii uu sameeyo YouTube channel dhaho soo fadhiisto dhaho this is my YouTube channel waa kana waa soo dhawaada la dhaho 1 billion ayuu ku heli karaa hal daqiiqo in ka yar. macnaha hiisa famous waa aad u caan u yahay, dadka samafalayaashaas lagu yaqaanaa. adigoo wax been wax ka dhigay, adigoo lagu garanoo dadku baray, waa lagu caawiyey yaa aad iyo aad lagu caawiyey, waa lagu soo dhaweeyey. maanta humraa samaysay yaa dad aad kala maqnayna hesheen, dad badan oo kala maqnaa la helay. maxaa isha asxaab fara badan oo horumar gaarsiiyey, saaxiibaad tihiin. qof walba oo ninkaas soo shaqeeyay waxaa loo baahan yahay inuu maxaa sheeg iscadeeyo asiga inuu falkaas ku lahayn. dadka la tuhmaayo lugta ay ku jirto, farta ay ku goodan tahay, waa inay iscadeeyaan hadday lillaahiyeen oo dembi aysan qabin. haddii waxa laga sheegayana ay tahay maxaa sheeg ay tahay xaqiiqna kule way caddaa doonta. iscaday adiga inaad dembi lahayn, asiga hortag, fahmaysaa, runta u sheeg. taas ayaana xalka u wanaagsan ah, waana xal aad iyo aad u wanaagsan inaad samaysid. dad badan anaga aan garanayno oo waagi hore aan garanaynin ayuu wax stop nambaray, bulshada baray, la caawiyey. intoodaba way ka tageen meesha, way ka tageen. ujeeduna ha ugu tagaane. hadday ka tageen arintaana soo ifbaxday. marka hadday arrintaas soo ifbaxday waxay tahay markaa maxaa kulansiiyey marka waa in la proof la keena, caddeemo la keena, lasoo taxliiliya waxaan wixii keenay. laazim qof unbaa ku lug leh, laazim qof unbaa ka dambeeyo, ha ahaado qof dibadda ah ama qof gudaha ah. It's a very difficult in waxaasoo kale la sameeyo. waa wax runtii maxaa sheeg maxaa sheeg samafale noocaas oo kale lagu dhaqaaqo. xasan toob waa samafale, waa nin haliyeeya, waa nin maxaa sheeg bulshada u adeega, u shaqeeya, entertainment ah, funny ah. dhinacankaas marka dadkaasna horumarkaas iyo uu sameynayo ayaa dadkaas qaar ay dhibsanayaan. meesha waa ka shaqeyn jir, just waa ka tagtay. It's enough. wax kaloo meesha adiga aad usii fargelisid oo aad kumbiyuutaradii wixii aad maxaan dhacay nin waxaa la sheegaya xilkaa laga qaadaa layidhi dowladda u diray kumbiyuutaradii wixii dhan iyo meesha xafiiskii dhan uu qaaday. It's not admilid waxaan waa isa waxay sheeg maxaa sheeg waa dadka loogu shaqeeyaa. sabab markaad u qaadanayso adiga dadka loogu shaqeeyaa, waxaan dadka loogu shaqeeyaa.
ka digtoonaad waxaas oo kale ka wacyigeliyo ninkaas ha loo tacsiyeeyo waxaan leenahay wixii kugu dhacay samri ma allaha kaa siiyo waana qaadashii mawcuudin allaha kaaga dhigo dadkan kugu soo xadgudbaynaa hortooda ay ka heli doonaan way ku dulmiyeen weliba dulmi cadiimo weyn ay ku dulmiyeen yaa iska sabar meelka khayr qabtaa ilaahay kaa siinaayo falkaanna waxaan kaa rabaa inaad macnaha ii sheeg meel dheer aad ugu soo hartaan rabaa. It's not easy in akoonto noocaas oo kale ah one day ama hal daqiiqo in gacantaada ay ka baxdo. It's not easy. Hadda way dhacdeen si mar kale aysan u dhicin waa inaad meel dheer aad ugu soo hartaa. waa in dadkii falkaas geelay aana hor keentaa haddii aan nahnay dadka koontadaas taageersan haddii aan nahnay dadka falkaas ka dambeeyey ha ahaato dibadda ha ahaato gudaha waa inaadna hor keentaa absolute waa inaad hor keentaa midda maanta aad kugu dhacdo qof walbay qabsan kartaa si go-aan loogu soo saaro uusan qof kale ugu dhiiranin falkaas oo kale xasatoob adiga ayaa furanoo ah hataa adiga ka jiifato ogow dad badan ay arrintan kusoo bixi doontaa waa in arrintan meel dheer ugu soo hartaa dadkaasina ciqaab la marsiiyaa weliba sharci laga soo dejiyaa isku wada raacsan yahay. It's not easy in koonto dadow la qaato waa wax runtii hadda kadibna waa inaan ka fiirsataa anagana waxaan rajaynaynaa in shartaas oo kale iyo dulmigaas oo kale ilaahay uuna soo gaarsiinin ilaahay naga haayo dadka la aaminayana ee mas-uul laga noqonayo lala shaqaynayna waa inay ahaadaan dad damaanad leh maxaa dhadaa ii sheeg hadhow meel loo raacda leh ama qof ceshto lacag laga dacwo kalo leh waa inay ahaadaan ka digtoonaada kadib arrintaana waa inaad meel dheer salka ceelka waa inaad tagtaa waay salka ceelkiisa waa inaad tagtaa. It's not easy. salka ceelkiisa tag furo ayaa inoo tahay koonto badanaa kici doonto markay kacdana dad baa la degi doona haddiise marka hadda wax ka qabatid oo arrinta meel dheer ugu soo hartid hadhow ciddan buu ku dhiiranaysaa in falcaynkaas oo kale gasho ma jiri doonto. haddaa kanalkaa ku cusub tahay saaxiib subscribe saar like saar sharena saar dadka falka caynkaas oo kale ku kacayana u sheeg inay galeen dambi weyn ilaahayna u toobadkeena maadaama hanti dadow ay cagta mariyaan hanti dadweyne ninkii qaatay walle waxbaa kuu dambeeya maanta maalina ka dabar daran tahay isqari wiligaaga maalin unbaad soo baxaysaa maalin unbaad soo bixi doontaa xaqiiqatan saas inoo badana miskiinkaasna loo duceeyo in ilaahay wixiisa meel ka dhow meel qeyr qabtaa inuu ilaahay usoo dhigo shacabka xasatoob iska sabar nafaa go-daba qofaa dhintaa laga sabraa youtube-kaasna hadduu kheyr kugu jiro wanaag kugu jiro ilaahay ha kuu soo celi doono haddii dhici weys inuu soo noqdana mid cusub ayaa samaysan doontaa arrintaasna meel dheer ugu soo har saas ayaan ku rajaynayaa videogaanna saas ayaan usoo duubay waan ka xunnahay dhibkaas dhacay haddii aan nahnay maamekadeenni waan ka xunnahay sharcigan waa in la soo taago dadkaasi saas ayaa noo badana subscribe ha ilaabin waa bilaash hoos meesha guduuda ah muujeedaa yaa shantaada farood mahane hal far bas weeye tag ku sii bas yaa tag mataqaanaa lee ku sii bas ya waa idinka taageeradiina nii baahana taageero baa niga baahana na taageera dee okay subscribe saar dhac sii meeshaas saas ayaa noo badana thank you very much joog tashakur idrim efet joog tashakur idrim thank you very much I love you bye.